xasan sheekh iyo waxa la socona waxaan leenahay dhaarta aad dhaarateen noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jiro Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dhaartu waxaan leenahay u nootaada hadalku waa noo midkaada marka qoladan soo harta yaa la arki doona ilaahay gaarnay siyaasad cusub inaan dejino dalka u dejino oo ah shabaab in la tirtiro laga daba lugay u baahan yihiin buraashad inta biyo looga daba shubto la daba kacay u baahan yihiin intuu jooga liira nin kastoo shabaaba waa hadaf ciidan kastoo shabaaba waa hadaf qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka Soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw afayeenka kooxda al-shabaab Sheekh Cali Dheere ayaa wuxuu wacd ku maray inuu baabi'in doono madaxweynaha qaranka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ciidanka qaranka ee Soomaaliya afayeenka kooxda al-shabaab isagoo xanaaqsan oo la hadlaya boqolaal ka tirsan ciidanka oo meel fagaara kula hadlaya waxa uu wacd ku maray inuu leen doono dhammaan ciidanka qaranka ee Soomaaliya waxa uu shacabka Soomaaliyeed uga digay gaar ahaan kuwa caasimadda inay ka fogaadaan xarumaha dawladda gaar ahaan hoteelada goobaha ciidanka iyo meel walba oo ciidan fadhiyo inay iskaga fogaadaan waxa uu wacd ku maray inuu qarxin doonaan inay baabi'in doonaan dhammaantoodba kale waxa uu u digay dhammaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ee ku lugta leh dagaalka haatan ku wajahan al-shabaab waxa uu yiri haddii aan aragno ama aan maqalno qabiil kamid ah qabiilada Soomaaliya oo dagaal ku jiro waxaan wacd ku maraynaa inaan dhulka la simi doono dhammaantoodba fadlan muuqaalka la garee ku soo aadaya xilli madaxweynaha qaranka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu wacd ku maray in la baabi'in doono dhammaan kooxda al-shabaab waxay muuqataa waayihii iyo waqtiga al-shabaab inay gabagaba tahay fadlan muuqaalka la garee fadlan YouTube-keena subscribe noo saar mahadsanidin